ciyaaraha gobolada ee Soomaaliya ayaa si habsami leh uga socda garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho. Ciyaartii labaad waxay dhex martay galabta kooxaha ku kala ciyaaraya magaca gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan koox ku ciyaaraysa sidoo kale koox ku ciyaaraysa magaca Jubbaland. Ciyaar xiiso badan oo garoonka ka dhacday kadib waxaa laba gool iyo hal ku adkaatay kooxda ku ciyaaraysa magaca Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan taasoo looga adkaaday kooxda kale ku ciyaaraysa iyaduna magaca Jubbaland oo taariikh ahaan lagu xasuustay inay 8 mar oo kale ay ku soo guuleysteen koobkan ciyaaraha gobolada ee Soomaaliya 15 mar oo la qabtay ay ku guuleysatay 8 mar oo kamid ah gobolka Jubbada Hoose kooxda ku ciyaari jirtay inkastoo ciyaartoydaasi xilliga ciyaaraysay oo macalinka hogaaminaya kooxdan uu kamid ahaa haddana Jubbaland garoonka waxay ku soo bandhigtay ciyaar qurux badan balse waa laga adkaaday 2 gool iyo hal ayaa looga adkaaday kooxda labada gool ay kooxda ay ku badisay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ku ciyaaraysay labada gool waxay dhalisay qaybtii hore qaybtii labaad markii la isku soo laabtay gool ah ama gool kama ah ay iska dhaliyeen kooxda ku ciyaaraysa magaca Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ciyaartoy kamid ah ciyaarayahanadii goolasha u dhaliyay ayaana markan iska dhaliyay goolashan ciyaarta ayaana sidaas ku soo gabagabowday waxaan la taaganahay kabtanka kooxda magaceeda ku ciyaaraysa Jubbaland ayaan hadda la taaganahay ciyaartina way soo gabagabowday adigoo magacaaga ku bilaabaya bal waxaad faahfaahin naga siisaa ama qaab ciyaareedka aad garoonka ku soo bandhigteen iyo natiijadii aad la kulanteen bismillaah qaab ciyaareed fiican oo ku soo bandhignay garoonka maasha Allah boqolkiiba waa ka kubad fiicnaan maadaama reer Jubbaland aan nahay haddana waxa ku ham weynahay inaan natiijadeena hore aan sii wadnaa aan ku sii socono qaab ciyaareedkan waa qaab ciyaareed fiican waata qaybtii hore ciyaarta laba gool ayaa la idinka dhaliyay markii labaad waad soo kabateen gool ayaad keensateen oo iska dhaliyeen daafacyada kooxda kale balooni qurux badan ayaa soo bandhigteen maxaad ka rajaynaysaan kulamada kale ciyaaraysaan kulamada kale waxa ka rajaynaa guul fara badan sida maadaama maanta ciyaar fiican oo soo bandhignay boqolkiiba geemka dambana waxa ka filaynaa sidaas iyo si ka dar inaan sii socon guulsheen aan sii wadan waxaan mar kale la taaganahay kabtankii hogaaminaya kooxdii ku ciyaaraysa magaca Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ee wacdaraha ka dhigtay galabta kulankii labaad ee ciyaaraha gobolada ee Soomaaliya adigoo magacaaga ugu bilaabaya bal ka war ciyaarta aad soo bandhigteen galabta bismillaah magacaygu waa Saciid Cismaan oo ku magac dheer Lumbaag kabtanka labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan guushan waa mid aan filayno saakidii hore idaacadaha ka sheegno maroodigii qoonada la qiwaayay kismay maroodi lagu sheegaa Hiiraan waa baarkii macnaha qoonada maroodi baa oo la qiwaayay marka qoonada waa guulku waa mid aan filayno guush laakiin waxa la yiraahdaa Jubbada Hoose taariikh ahaan ciyaaraha gobolada 15 mar oo la qabtay 8 kamid ay ku guuleysteen galabtan ciyaar qurux badan ayay soo bandhigeen inkastoo tarabuunka aad ka haysateen taageero fiican maxaad is leedahay ciyaaraha kale iyo ciyaarta galabta aad soo bandhigteen mar waa waagi hore mar ahaan jirto waa jirtaa laakiin hadda Hiiraan iyo Shabeellada waa koobkan waa si meel fiican ka gaarana rajaynayna ama ku guuleysanaba la taaganahay haddana mar kale macalinka kooxda hogaaminaya Jubbaland ku ciyaaraysay wacdaraha ka dhigtay galabta inkastoo laga adkaaday macalin adigu magacaaga ugu bilaabaya bal ka waran ciyaartii aad soo bandhigteen galabta magacayga waxa la dhahaa Cabdi Xasan Siyax Saanjo waxaan soo dhignay ciyaar wanaagsan oo aad iyo aad loogu riyaaqay dadweynaha weli waxay taagan garoonkii dhaxdiisa 2-1 laba annaga iska dhalinay iyo hal ayaga iska dhaliyeen annaga wax aan mataqaana dhibaato kama taagno ciyaartana marna waa laga reynaa marna waa reynaysaa laakiin Jubbaland State 8 koob ay wadataa xanaaqayna waa badan yahay in loo dulqaadan waa tahay koox ahaan inta jeer la qabtay 8 mar ayaad ku guuleysateen ciyaarahan gobolada galabta waxa ay muuqanaya ciyaartoy fiican oo ay kamid yihiin ciyaarayahanka nambarka afraad ee daafaca idin ciyaaraya iyo ciyaaryahanna fara badan kulamada kale aad ciyaari doontaan maxaad ka rajaynaysaan kulamada dambe tan ku si fiican maadaama oo ilmahaneeto rubac qarni aynan dheelin dagaaladii dhacay awgeed waa markii koowaad aan isku keenno gobolada marka waxaan baraynaa Jubbaland iyo maroodigii marka maroodigana kooxdii Jubbada Hoose iyo kooxdii Jubbada Hoose oo aad taqaan hadda aan ka noolaa inta hadda magaalada ku joogto inta kala dibadda ay jiraan Bishaakir iyo Afiifi iyo annaga hadda waxaan ku joognaa Diili Mahadi waxaan ku joognaa Cabdo Cabdalla waxaan ku joognaa Cabdi Gaabo waxaan ku joognaa Biig waxaan ku joognaa Kaata waa tahay kulanka xiga waxaad ciyaari doontaan Isniinta dhigina Galmudug ayaa la ciyaari doontaan maxaad ka filaysaan kulankaas Galmudug waxaan ka rajaynaynaa inaan ku durdurino sababta xanaaqan qabna xanaaqayna kula dhacaynaa
haatana waxaan la taaganahay macallinkii kooxdii guuleysatay ee galabta hogaaminaya ee Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan kulamadii labaad ama kulankii labaad ee ciyaaraha gobolada ee Soomaaliya ee ka socda garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho macallin balka waran ciyaartooydiina ma isleedahay dardaaran aad soo siisay ayay muujiyeen galabta guusha ay gaareen marka hore waxaan halkan ka salaamayaa TV-ga Jubbaland iyo dhammaan bahweynta isboortiga jecel markaan u soo noqdo su'aashaada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo la isu mataaniyay waxay u soo diyaar garoobeen inay ka qayb galaan tartankan zoomanka marka waxaan jecelnahay galabta ciyaartii ugu horreysay ayaa ciyaarnay guul ayaan helnay alxamdulillah ilaaha ma haddaas iskale waxaan jecelnahay ciyaaraha soo socdo in aan bedeli doono qaabkan ku soo galnay marka waana dadaalaynaa ilaahay qolo walba waxay u soo diyaar garoobeen inay tartankaas guul ka keento annagana waxaan diyaar u nahay in aan helno bareejo in aan badino inna laga badiyo intaba diyaar ayaan u nahay magac ahaan Jubbada Hoose 8 mar ayaad ku guuleysatay bal ma idin dhiirigelinaysaa ciyaarta soo bandhigteen maanta aad iyo aad ayay noo dhiirigelinaysaa sababtoo ah gobolada markii ciyaarihii gobolada bartamaadkii la qaban jiray Hiiraan iyo Kismaayo xifaaltan ayaa ka dhexay jiray Kismaayo iyo Shabeellada Dhexe xifaaltan ayaa ka dhexay jiray marka waxaad arkay in micnaha xifaaltankii hore ay ciyaari jireen inuu hadda wili socdo haddana la isku mataanayay labadii gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan daawadayaal fara badan ayaa garoonka soo buux dhaafiyay oo taageerayaasha tarabuunka aad ay uga qaylinayeen iyagoo ku qaylinaya magacyada gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo sidoo kale magaca Jubbaland inkastoo taageerayaasha garoonka soo xaadiray u badnaayeen inay taageerayeen kooxaha ku ciyaaraya magaca Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan kooxda ku ciyaaraysa iyadoo u taageerayeen gabagabadii ciyaarta ama markii ay soo idlaatay ciyaarta intii aan garoonka laga dareerin agaasimaha ciyaaraha ee gobolka Banaadir ayaa isaguna saxaafadda kula dhex hadlay gudaha garoonka isagoo ka warbixiyay habsami u socodka ciyaarahan iyo sidoo kale waxa laga rajaynayaa ciyaarahan inay ku soo dhamaadaan waxaana uu ku tilmaamay arrin guul ah in 25 sanadood kadib si habsami leh garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho uga socdaan ciyaaraha gobolada ee Soomaaliya kooxda Jubbaland ciyaar fiican ayay ku soo bandhigtay garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho inkastoo laga adkaaday qaar ka mid ah ciyaartooyda daafaca u ciyaaraya sida ciyaaryahanka nambarka 4 ayaa aad uga dhex muuqday ciyaartan ay la yeesheen dhigooda Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ciyaarta xigta ciyaartan waxay dhex mari doontaa xulalka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Puntland 17 ayaana la ciyaari doonaa oo maalinta Axadda ah ay ka dhici doontaa garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho Cabdi Fataax Shana Jubbaland TV Muqdisho